مسؤولين سرسرة وكسعد wasarada Shaqogalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada Burco ayaa kormeray indhayn ku sameeyay goobaha kala duwan ay ku dhaqan yihiin laguna xanaaneeyo carruurta darbijifta ee magaalada Burco waxaana sidoo kale mas'uuliyiintani ay kormeer indhayn ku soo mareen xaafadaha kala duwan ay ku dhaqan yihiin dadka barakacayaasha ahi ujeedada wafdigan ayaa sida ay xogaal dhaba ugu noqon lahaayeen carruurta darbijifka iyo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Burco ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay suduwaha wasarada Shaqogalinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Togdheer Ismaaciil Xayir waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan markaan waxaan leenahay dawladda iyo wasaaradda wixii hala ballaariyo xarunna loo sameeyo ay macnaha ay si carruurtu u wada hesho wixii ay baahiyaha u qabtay meel ay ku ciyaarto meel ay ku jimicsato meel ay ku dabaalato dhankoodana waxa halkaasi ka hadlay la taliyaha wasiirka Shaqogalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Axmed Maxamed Shaqale Filsan Xuseen Khaliif oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaraddaasi iyo Cawaale Maxamed Muuse oo ah agaasimaha waaxda dabagalka mashaariicda ee wasaaraddaasi waxaana sharaxaad ka bixiyeen ujeedada socdaalkoodani waxaan horna waan sheegnay imikana waan ku celinayaa waxa xusid mudan in qaranku soo jeestay in carruurta wax laga qaban karo laga qabto kormeerka yagani dalkan ku marina wuxuu kookay in aan dhamaan xarumaha iyo xaaladda guud ee carruurta aan lahayn daryeelka waalidka rasmiga in la ka wardoon oo ugu horeeyaan kuwa xarumaha dhaqancinta ku jira amba wixii aan ku jirnay meel banaan jooga lafteeda haddii aan ka hadlo yani hawshan oo soo baxnay waxay kamid ahayd hawshan oo kale si aanu xogaal ugu noqono xarumaha carruuruhu ku jiraan si aan xaaladooda dhabta ah u soo ogaano waxa jira xarumo badan xarumo ay dad gacmaha ku hayaan xarumo ay hay'ado gacmaha ku hayaan xarumo ay NGO ay gacmaha ku hayaan carruurta waa inaan ogaanaa xaaladooda dhabta ah waxa ay ku sugan yihiin si aan ula socono bal xarumaha carruurta lagu xanaaneynayo sida noloshoodu tahay manhajka waxbarashada loo dhigo sidaasan horta ujeedadaydu ay tahay in carruurta ka leenahay waxa kale oo iyadana u soconaa inaanu kormeerno ADB-yada dadka barakacayaasha ay abaaru soo barakiciyeen dadkaas bal iyagana xaaladda ay ku sugan yihiin yani inaanu soo ogaano xaaladooda anagoo ka eegayna xagga arrimaha bulshada inaanu bal dadkaasi noloshay ku nool yihiin inaanu soo ogaano labada arrimood baan u soconay xarunta santarka daryeelka carruurta dhaqancalinta ee Burco runtii waxaan kormeer ku sameynaa xubno ka tirsan wasaaradda Shaqogalinta arrimaha bulshada iyo runtii qoyska ee Soomaaliland oo ka wakiil wasiirka wasaaraddaasi oo maalmaha kormeer ku sameynaa guud ahaan gobolada runtii ujeedada laga leeyahay waa in runtii si dhab ah loo eego xaaladda carruurtaas ku nool yihiin inagoo ognahay inay tahay waqti dhaxana in carruurtaasi xaaladii ku jiraan iyo runtii guud ahaan carruurta darbijifka Soomaaliland magaalooyinka xoog laga ururiyo idinkood ka waraysan caasimadda Hargeysa wasiirka iyo agaasimaha madaxda kale wasaaraddu ay toddobaadii ugu dambeeyay howlgalo ay ku ururiyeen ay wadeen si gaar ah ugu mahadnaqaya xildhibaan Mubarak Bidhi horunta xildhibaanka ugu firfircoon golayaasha deegaanka Soomaaliland wuxuu sameeyay xaruntaasi runtii carruurtaasi lagu daryeelo ee ku taala magaalada Burco xildhibaanada kala dhigiisa ee Soomaaliland waxa la yahay magaalooyinka saasileeg bay idinka baahayn wixii ku soo dortaan ka qabataan waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland.